waxaan guda galnay rubuc qarnigii labaad ee qarniga 21aad duniduna waxay isu bedeshay mid digital ah. Suuqa shaqadu wuxuu noqday mid ciriiri ah, Soomaaliduba ha ugu sii darnaatee. Haddaba muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa 7 xirfadood oo ay muhiim tahay inaad ku qalabeysan tahay 2025 si aad muhiim uga noqotid suuqa shaqada. Intaanan xogtan kuu soo gudbin, muuqaalkan like saar, subscribe iyo follow-na si aad noola socotid oo noola saaxiibtid. xirfadda koowaad ee muhiimka ah waa graphic design. inaad taqaanid sida loo naqshadeeyo sawirrada, boodharka, xayeysiimaad samayn kartaa, sidoo kale ganacsi online ah ayaad u samayn kartaa boodhar kala duwan. xirfadda labaad waa video editing-ka. maanta waxaad og tahay saxaafadda, shirkadaha ganacsiga ee online-ka wax ku iibiya, inaad youtuber noqotid oo freelancer content creator aad noqotid, iyo inaad jilaan noqotidba waxay u baahan tahay inaad taqaanid xirfadda tafaftiridda muuqaalada. xirfadda saddexaad waa web development-ga ama web designing. inaad website dhisi kartid, hadduu mid ganacsi yahay, hadduu mid e-learning yahay, hadduu yahay mid surface lagu bixiyo, hadduu portfolio yahay, iyana waa xirfad runtii aad u muhiima. xirfadda afraad waa xirfadda la yidhaahdo digital marketing. waxaad ogtahay dunidii maanta inay online isu bedeshay, goobihii ganacsigu dhammaantood online isu bedeleen. inaad maanta taqaanid habka si digital wax loogu xayeysiiyo, Google AdSense hadday tahay, hadday search engine optimization tahay, haddii social media marketing tahay, hadday affiliate marketing tahay, dhammaantood waa xirfado kaa dhigaya qof muhiima oo aad loogu baahan yahay. xirfadda shanaad waa e-commerce. inaad ganacsi online samayn kartid oo runtii aad wax ku iibin kartid sida Shopify oo kale ama Amazon oo kale, oo internetka aad wax ku iibin kartidna waa xirfad runtii aad u muhiima. wayna ka dhaqaalo badan tahay ganacsiga caadiga ah, sababtoo ah tiro yar oo kooban isku deegaantiin ayaa ganacsigaaga productgiisa arkaya markay si traditional tahay, laakiin habka online-ka ah malaayiin qof oo internetka isticmaalaya ayaad la wadaagaysaa. labada xirfadood ee runtii aadka u muhiimka ah ee shantaas soo raaca waxa weeyaan AI and machine learning technical. inaad taqaanid sida artificial intelligence toolska loogu shaqeeyo, hadday tahay hab graphic design sida Canva oo kale, hadday tahay sida kuwa muuqaalada lagu dhiskarayo, hadday tahay kuwa website-da lagu dhiso sida WordPress oo kale. runtii aad bay muhiim u tahay inaad AI toolska aad taqaanid. qodobka toddobaad ee ugu muhiimsan waxa weeyaan inaad taqaanid luuqad, inaad ku hadli kartid luuqadda Ingiriisiga, wax ku akhrin kartid, fahmi kartid. dhammaan xirfadahan waxay u baahan yihiin inaad update tahay oo la socotid waxa weeyaan update-koodii u dambeeyey. si taasi u dhacdo waa inaad taqaanaa luuqaddii aad ku fahmi lahayd hadba cidda aad cilmiga ka kororsanaysid ama update kala soconaysid. luuqadda Ingiriishku waa luuqad international ah oo luuqad aqooneed ah. inaad iyada taqaanid wax badan bay kaa saacidaysaa, waxayna sare u qaadaysaa ilbaxnimadaada iyo fogaan araggaaga. haddaba daawadee, asxaabtaada la sii wadaag, commentigana waxaad noogu reebtaa xirfado kale oo aad is leedahay maanta suuqa shaqada waa ka muhiim oo aad baa loogu baahan yahay. aad baa u mahadsan tahay. ogeysiis waxaa loogu bishaaraynayaa dhammaan bulshooyinta Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska diiniga Liibaan Online Teaching uu diiwaan gelin doono arday cusub. haddaba haddii aad rabtid inaad baratid higaada qur-aanka iyo tajwiidkiisa, tafsiirka, axkaamta, tani waa fursadaadii. sidoo kale haddii aad qurbaha joogtid oo rabtid ilmahaaga uu diinta kuu barto si dhammaystiran oo sabtida iyo axadda keliya aad kaga maarantid, tani waa fursadaadii. haddaba waxaa nagala soo xiriirtaa lambarka shaashadda kaaga muuqda. haddii aan kuu yeeriyana +252 9 eber 5 444 55 eber. aad baa u mahadsan tahay.